kulan wacan daawadayaal halkan waa xogta qarsoon muuqaalkani waxaan kusoo koobayaa 4 arrimood oo uu saameyn karo kadib imaanshiyaha Muqdisho ee Fahad Yaasiin. Ninkan saameynta badan muxuu qaban karaa kadib markii uu soo degay? Muuqaalkani ayaan kusoo koobayaa daawade. Haddii ay tahay markii ugu horreysay uu kusoo gaaro channelkayga xogta qarsoon, magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxamed. Daawade waxaan ka codsanayaa in muuqaalkani share garayso, sidoo kalena channelkayga subscribe aad saarto. Hagaag magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray agaasimihii hore ee Sugidda Sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin Xaali Daahir oo dhawaan loo magacaabay la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweyne Farmaajo. Jimcadii ayaa hadalhayn xoogani waxay ka dhalatay arrin ku saabsan safarka Fahad oo kaga imaanaya Turkiga kadib markii diyaaradu saarnaa dib loogu celiyay magaalada Jabuuti. Saaka aroortii ayuu Fahad gaaray Muqdisho waxaana uu soo raacay diyaarad qaas oo la sheegay inay ka soo qaaday Turkiga. Ilaa iyo haatan lama ogeyn diyaaradda waday ee xogta duulimaadka la sii wadaagtay mas'uuliyiinta ku sugan garoonka ka hor intaysan soo caga dhigan. Imaanshihiisa wuxuu ku soo aaday xilli uu taagan yahay khilaaf ku dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Sabtidii waxaa baaqday shir ay ku ballansanaayeen guddiga amniga qaranka kaas oo la filayay in Fahad Yaasiin uu ka qayb galo kana jeediyo warbixin ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil Faarax. Gabadhaas ayaa ka mid ahayd saraakiisha hay'adda sirdoonka, balse waxaa la waayay 26 bishii Juun. Ilaa iyo haatanna meelo laguma sheego, inkastoo dhawaan la shaaciyay in Al-Shabaab ay dishay, taas oo tallaabo ay beeniyeen. Haddaba waxaan eegaynaa howlaha horyaala Fahad ee ku dhaqaaqi karo maadaama dib ugu soo noqday. La wareegista xilka taliyaha amniga la taliye Farmaajo. Markii horaantii bishan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble shaqada ka joojiyay Fahad Yaasiin oo agaasimiye hay'adda muqaabaraadka, waxaa durbadii madaxtooyada ka soo baxday wareegto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu magacaabay Fahad inuu noqdo la taliyihiisa amniga qaranka. Qoraalka Farmaajo waxaa lagu sheegay in Fahad uu iska casilay xilkii hore, walow tallaabada ra'iisul wasaaraha loo fasiranayo inay ka careysiisay madaxweynaha. Maadaama Fahad dib loogu soo laabtay Muqdisho, waxyaabaha laga filan karo waxaa ka mid ah inuu la wareego xilkaas. Ha yeeshee Korneyl Shariif Xuseen Rowow oo mar hore ugu tirsanaa hay'adda Sugidda ayaa aaminsan in booska cusub ee Fahad uusan ahayn mid saameyn ballaaran leh haddii awooddii hore ma yeelan doono. Hadda ciidanka hay'addan maamulkeeda waa uu ka wareegay gacantiisa, ayuu yidhi. Sidoo kale howlaha u yaala waxaa ka mid ah inuu wareejiyo xilkii hore. Haddaba maxay tahay shaqada la taliyaha amniga? Sidaan ka soo xiganay xarunta cilmi baarista waxbarashada Mareykanka ee Masterclass, xilkan waa mid muhiim u ah xafiiska madaxweynaha. Hawsha la taliyo amnigu waa in madaxweynaha uu ka caawiyo go'aan ka qaadashada la xiriirta arrimaha amniga qaranka, gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda, gaar ahaan arrimaha khuseeya ammaanka. Labo, inuu soo diyaariyo xogta kooban ee madaxweynaha laga siiyo arrimaha ammaanka qaranka ee markasta taagan iyo qorshayaasha. Marka laga soo tago in talooyin noocaas ah uu siiyo madaxweynaha, waxaa la taliyaha amniga xubin uu ka yahay golaha amniga qaranka, sida dalal badan ay sameeyaan oo uu ku jiro Mareykanka. Golaha amniga qaranka waxaa hogaamiya madaxweynaha oo garab taagan yahay la taliyihiisa oo saameyn ku leh go'aanadiisa wax badanna tusaaleeya. Labo, ka qaybgalka shirkii golaha amniga qaranka. Kulankii la filayay inuu Fahad kaga qayb galo 18 bishii September waxaa la qorsheenayay inuu soo bandhigo faahfaahin buuxda oo ku aadan waxay hay'addan ka ogtahay kiiska gabadha la waayay ee ka tirsanaan jirtay saraakiisha hay'adda. Horey waxaa u soo baxay warar sheegaya in ay ku dhawaaqday in Ikraan ay dileen Al-Shabaab, walow kooxdaasi iska fogeeyeen arrintaas. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa mar kale dib u dhigtay shirka golaha amniga, waxaana ay sheegtay in la qaban doono xilli kale, inkastoo si toos aan loo cayimin taariikhda. 3, soo bandhigista warbixinta kiiska Ikraan. Maadaama uu Fahad uu soo gaaray Muqdisho, waxaa suuragal ah in tallaabooyin uu qaadi doono ay ka mid noqoto inuu ka qayb galo shirka golaha amniga qaranka. Kiiska Ikraan Tahliil waxaa ku howlan maxkamadaha, waxba golaha amniga shirkiisa waxba kama soo kordhinayo ay leeyihiin dadku, maxaa yeelay hay'adda sharciga ayaa ku guda jira baaritaanka, yiri Korneyl Shariif Xuseen Rowow. 4, saameynta kulamada wadaxaajoodka. sida muddada dheer la hadal haya Fahad Yaasiin wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka saaxiibka dhowlaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo haddana loo dalacsiyay jago u sii dhaweynaysa madaxweynaha. Wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya xiisadda Soomaaliya waxay sheegayaan in weli la wado dadaalo la isugu soo dhaweynayo labada hogaamiye ee khilaafku ka dhex aloosan yahay. Inta ay socdaan wada hadallada waawaanta laga dhex sameynayo Farmaajo Roble waxaa saameyn ku yeelan kara Fahad maadaama uu hadda yahay la taliyaha madaxweynaha dalkana dib ugu soo laabtay. waxaa hubaala in Fahad uu talooyin ku yeelan doono go'aanada madaxweynaha, laakiin danta shacabka waxay ku jirtaa inuu kula taliyo inay qaataan waanwaanta labada, ayuu yiri sargaalka ka faalooda arrimaha amniga. qaar ka mid ah siyaasiyiinta sarsare ee Soomaaliya ayaa ku mashquulsan inay xal dhex dhigaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha si loo wado hanaanka doorashada, sidoo kalena beesha caalamka ay uga
horeeyaan Mareykanka iyo qaramada midoobay u xusul duubayaan in la soo afjaro xiisadda si loogu baaqsado in doorashada dalka ay dib u dhacdo. Fahad Yaasiin waa mid ka mid ah dadkii ugu saameynta badnaa siyaasadda Soomaaliya, waxaana muddadaas aad loogu diidanaa ama ay ahaydba in laga cabsanayay xitaa inuu ahaa nin aan si la yaab leh dowladda kaga baxayn, balse tani ku dhacday waxa ay hadalhayn badan ka sameysay baraha bulshada. Maxamed Cumar oo isna falanqeeya wuxuu yidhi hay-adaha caalamiga ee xasarada ayuu isna sidoo kale ka shaqeynayay, waxaana uu ku sheegay imaatinka Fahad inay kusoo aaday xilli adag oo haddana xasaasi ah. Imaanshiyaha Fahad waxay wax weyn u tahay madaxweyne Farmaajo, waxay walaac ku tahay dhanka Rooble ayuu yidhi. qorshaha Fahad ayaa in shirka golaha amniga qaranka uu kusoo bandhigo warbixin la xiriirta kiiska Ikraan, balse shirkaas ayaa dib u dhacay kadib markii diyaaradii 17 bishan lagu celiyay garoonka diyaaradaha oo ku yaal dalka Jabuuti. La taliyaha amniga qaranka waxaa haatan si weyn ay isku hayaan ra'iisul wasaaraha oo horey ugu qaaday xilka agaasimaha nabad sugidda kadib markii uu soo shaabaxday warar sheegaya in ay Al-Shabaab dileen sargaalada Ikraan Tahliil Faarax. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee soo baxaya ayaa sheegaya in Fahad imaanshiyihiisa aanu waxba ka ogeyn ra'iisul wasaare Rooble, sidaa daraadeed dharbaaxo kale oo xanuun la ay gaartay ra'iisul wasaaraha. taasi waa go'aan kale oo la filan karo in ra'iisul wasaaruhu waxyaabo kala soo saaro. diyaarad gaar ah oo ka timid Turkiga lana socdeen xubno ay hogaaminaya Fahad Yaasiin ayaa soo caga dhigtay aroorkii hore ee saaka garoonka Muqdisho, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo gaar ah oo soo gudbiyay dhinaca madaxtooyada. imaanshiyaha Fahad iyo xubnaha la socday waxay ahayd mid qarsoodi oo aysan ka warqabin xubnaha xafiiska ra'iisul wasaaraha oo hore u xiray diyaaradda siday inay ka caga dhigato garoonka Aadan Cadde. Fahad Yaasiin ayaa dib ugu celiyay garoonka diyaaradaha Jabuuti 17 bishan xilli uu ku soo jeeday Muqdisho. haddaba Fahad siyaasadiisii saameynteedaba waxay noqotay hadalhaynta ciwaanada caalamka ee siyaasadda Soomaaliya. haddaba daawada aragtida noo reeb nabadgelyo.